kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhowaada qaybtii lixaad ee buugga sheekafaneedda ah ee saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud waxaanay ku bilaabmaysaa qaybta lixaad ee buuggu sida tan. xaafadda badankeedu wax nal ah ma lahayn, intii lahaydna wuu ka dansanaa. waxa uu ahaa habeen cirka daruur xidhay, mugdigana haddii faraha indhaha lagaa geliya aanad waxba arkayn. waxay marba luuq gooyaan oo bisada iyo ay suuq joog ahi ka horboodaanba waxay aakhirkii gaadheen gurigii oday Cabdulle. waxa uu ahaa guri yar oo cariish ah oo 2 qol ka kooban. waxaa bannaanka fadhiyey oday Cabdulle xaaskiisa oo Madiine la yidhaahdo, hooyadeed iyo 2 caruuro oo wiil iyo gabadh ah oo oday Cabdulle dhalay, qiyaastiina ay saxarla isku daayihiin. oday Cabdulle ayaa yidhi, arciddu ma nabad qabtaa? oday Cabdulle sadohdii oo Muumino la yidhaahdo ayaa ku jawaabtay, oday Cabdulle khayr baanu sheegnay. kadibna dambiishii ama silsiladii uu alaabta ku siday ayuu xaaskiisa Madiine hordhigay. kolkaas bay oday Cabdulle xaaskiisa Madiine weydiisay, cunugtanna xaggeed ka keentay? wuxuu ugu jawaabay, gabadhani marti weeyi ee nafta ku soo qabta, baahi ayay la liidataaye. kadibna inta uu 2diisii caruuro oo derma ku fadhiyey gacanta ugu fiiqay ayuu saxarle ku yidhi, adeer la fadhiisa walaalaha. saxarle oo qaloonaysa ayaa Muxibbo oo gabadhii da'deeda ahayd dhinaceeda fadhiisatay. deedna Madiine ayaa tidhi, Muxibbo kac oo cambuulo aabbaha iyo gabadha u soo gur. Muxibbo ayaa kacday oo jiko yar oo guriga dhinaciisa ku taalay inta ay gashay soo gurtay cambuuladii. saxan cambuulo ah ayay hordhigtay saxarla. kadibna Madiine ayaa Muxibbo weydiisay, naama ugu soo dartay macsaro? Muxibbo ayaa ugu jawaabtay, haa hooyo, waan ugu soo daray. haddana oday Cabdulle ayaa weydiiyey, Muxibbo gabadha faradhaqma u keentay? waxay ugu jawaabtay, aabe qaado ayaan ugu soo riday. inta uu saxankii cambuuladu ku jirtay gacanta ugu fiiqay saxarle ayuu ku yidhi, cun adeer. inkastoy arki jirtay neero oo cunaysa, weligeed cambuulada afkeeda ma gelin, waxaanay u malayn jirtay midho miyiga laga keenay oo la kariyey. hase ahaatee habeenkaas gaajadii haysay darteed danta ayaa ku qasabtay oo intii saxanka ku jirtayba waxa ay kaga saartay 3 daqiiqadood. Samaan oo caruurta ugu yaraa oo dermada dhinac kaga fadhiyey ayaa waxa uu ilqoodha ka eegayay saxarle isaga oo xiiseynayay in uu si fiican wejigeeda u arkoodo. waxaana uu bilaabay inuu si tartiib ah xaggeeda ugu durko si uu isha uga bogto. Samaan waxa uu ahaa wiil yar oo aad u edeb iyo caqli badan, laakiin damcigiisu aad u badnaa. sidii uu ugu soo durkayay ayuu dhinaceeda fadhiistay. kadibna inta uu saxarle gacanteeda taabtay ayuu ku yidhi, magacaa? intaanay saxarli weli u jawaabin ayay Madiine maqashay kuna tidhi, waryaa gabadha rabshada ka dhaaf. kadibna inta uu afka xanaaq la buuray ayuu dhinaca kale uga durkay. oday Cabdulle oo dharkii uu ku shaqaynayay iska soo bedelay ayaa qolkii ka soo baxay. kadibna inta uu gabadh jikada hor yaalay ku fadhiistay ayuu yidhi, Muxibbo kaale aabbo weyse ii keen. markii uu tukaday ayuu xaggii qolkiisa u dhaqaaqay. deedna isagoo qolkiisa sii gelaya ayuu yidhi, Madiine caruurtu berita iskuul ma leh miyaa? maxay u seexan waayeen? Madiine ayaa iyada oo sii ruqaansanaysa tidhi, Muxibbo alaabta meesha ka gur oo dhaq inta aanad seexan. gabadhan walaasha ahna ha kula seexato ee meelu bannee. kadibna Madiine oo xaggii qolkeeda usii ruqaansanaysa ayaa Samaan ku tidhi, war kac oo adiguna seexo, habeen kasta ma in lagu sheega ayaad rabtaa? guriga oday Cabdulle waxa uu ka koobnaa 2 qol iyo jiko yar oo bannaanka ku taala. marka laga reebo Samaan oo reerka ugu yaraa oo hooyadii iyo aabbihii la seexan jiray, Muxibbo ayaydood Muumina iyo wixii marti ah ee reerka u yimaadaaba waxa ay seexan jireen qol. 2da qol waxa kala yaalay 2 faynuus oo marka la seexanayo la damiyo si gaasta loo dhaqaaleeyo. Muxibbo ayaa markay weelkii dhaqday jikadiina kala hagaajisay ku tidhi saxarla, abbaaya soo kacan seexanee. qolkii ayay u dhaqaaqeen iyaga oo istaba socda. waxaa qolka yaalay 2 sariirood oo catiir ah oo midna Muxibbo ku seexato midna Muumina ku seexato iyo joodari yar oo dadka martida ah loogu talagalay. Muxibbo ayaa intay saxarle sariirta gacanta ugu fiiqday ku tidhi, abbaaya seexa dhinacaasi.
intii aanay jiifsan ka hor ayaanay Muxiba faynuuskii damisay. Waxay Muxiba xiisaynaysay in ay Saxarla la seexato oo xaaladeeda wax ka ogaato. Muxiba ayaa wax yar kadib markay sariirtii jiifsadeen Saxarla weydiisay, "Abbaaya xaggeed ka timid?" Saxarla ayay wax jawaab ah ka weyday, kadibna waxay dareentay inay markiiba hurdo la gataati dhacday. Markay aragtay Saxarla oo gamaadayna intay xagga kale u jeesatay ayay madaxa iyo mijaha ismartay. Habeenkii gelinkiisii dambe ayaa Saxarla si xun caloosha looga qabtay, maadaama caloosheeda oo madhnayd ay habeenkii digir badan cuntay. Xanuun dartii ayay labada indhood isu keeni weyday oo siday hadba dhinac isugu rogaysay waagii ugu baryay. Madiina ayaa intay albaabkii qolka soo istaagtay tidhi, "Muxiba hooyo meesha ka soo kac oo gabadha soo toosi ha quraacatee inta aanad tegin." Muxiba oo iskuulkii isu diyaarinaysa ayaa intay qolkii ku soo laabatay Saxarla ku tidhi, "Abbaaya kaalay qureeco." Saxarla oo caloosha gacanta ku haysa isla markaana indhaheeda ka muuqdaan in xanuun weyni haya ayaa bannaanka u soo baxday. Kadibna Madiina ayaa weydiisay, "Hooyo caloosha miyaa lagaa hayaa?" Kolkaas bay iyadoo hoos eegayso cod daciif ah ku tidhi, "Haa." Kolkaas bay Madiine ku tidhi, "Kaalay qureeco waad bogsan doontaaye." Intii aanay u jawaabin ayay Saxarle dhulka ku dhacday oo hunqaacday. Kadibna Madiina ayaa intay xaggii Saxarla u oroday oo madaxa labadeeda gacmood kaga qabatay tidhi, "Bisinka ha isku celin mataga ee si fiican isaga keen." Waxay hunqaacday wax aad dhuxul moodid oo indhuhu ka naxayaan. Kadibna Madiina ayaa intay xaggii jikada u dhaqaaqday tidhi, "Isug biyo aan mataga kaaga dhaqo aan kuu keenee." Waxay soo noqotay Saxarla oo beerka u jiifta oo matagii ku dul dhacday. Kadibna intay labada garab soo qabatay iyada oo dhulka ka hinjinaysa ayay tidhi, "Bismillaahi raxmaani raxiim. Maxaa kugu dhacay hooyo?" Waxay aragtay afkii oo ay xunbo ka sii daynaysa iyo indhihii oo dhinaca cad isu rogay. Kolkaas bay iyada oo weli kor u haysa Samaan ku tidhi, bisinka kaalay hooyo ay daawo igu yeedh." Samaan ayaa orod isa sii daayay oo ay daawo oo farmasi deriskooda ah ka shaqaysa u yeedhay. Iyada oo dhulka jiifisay oo matagii ka tirtiraysa ayay timid ay daawo. Kolkaas bay weydiisay, "Maxaa cunugta ku dhacay?" Madiina ayaa ugu jawaabtay, "Abbaaya mar keliya intay matag bilowday ayay in yar kadibna suuxday." Digtooradii ay daawo ayaa weydiisay, "Ma neefsanaysaa?" Madiina ayaa ugu jawaabtay, "Abbaaya u malayn maayo. Miyaanad u jeedin inay indhaheedu xagga kale u gedisan yihiin?" Kadibna digtooradii ayaa Madiina ku tidhi, "Biyo ii keen." Madiina oo argagax ka muuqda ayaa xaggii jikada u oroday oo markiiba la soo booday madiibad biyo ah. Digtooradii ayaa intay biyihii bisinka u qabatay dusha kaga shubtay Saxarla. Kadibna dumar badan oo deriska ah oo ku soo ururay markay maqleen dhibaatada deriska ka dhacday ayay digtooradii ku tidhi, "Naa hawada uga leexda oo dib uga durka." Xoogaa markay dul taagnaayeen oo ay sugayeen soo maaxashadeeda ayay indhaha kala qaaday Saxarle. Digtooradii oo madaxa Saxarla kor u haysa ayaa weydiisay, "Ma ii jeedaa eedo?" Madaxa ayay hal mar gundhisay iyada oo haa ka wada. Waxay ku tidhi, "Insha Allah waad fiicnaanaysaa, aniga ayaana daawo kuu keenaya." Kadibna digtooradii ayaa Madiina ku tidhi, "Madiina kaxee oo qolka jiifi, daawo ayaanu doonayaaye." Madiina ayaa markay Saxarla soo jiifisay qolkii ka soo baxday dumarkii deriska ahaa oo isweydiinaya su'aalo ay ka mid yihiin, "Cunugtu waa reer waqooyi, yaa waday? Maxay soo raacday? Cid ma leh miyaa?" Kolkaas bay Madiina oo doodii dumarku isdhaafsanayay ka xanaaqday tidhi, "Bismillaahi raxmaani raxiim. Dadka ma shaydaan baa wax u sheega? Sideed ku ogaateen cunugta xalay timid arrimaheeda iyo meesha ay ka timid?" Markaas bay usii raacisay, "Naa orda guryihiina aada, shaqa la-aan baa idinka badataye." Kolkaas bay haweenay da-weyn oo ul ku tukubaysa oo ay Madiine qaraabo yihiin intay xaggii gurigeeda u dhaqaaqday ku tidhi, "Naayaa waa gabadh. Baqbaqdaada ma kasayee, ilmaha dadow ee aanad garanayn guriga intaad soo gashato ha kugu dhintaan." anigoo aradan anfacana dhammaan umalkaagaxaa urkaygayaan anigoo aradan anfacana dhammaan afka saarintan eedaadayaa afka saarinban eedaadayaa. Digtooradii oo kiniisida ayaa soo laabatay, waxaanay Madiina ku tidhi, "Madiina hadda 2 xabba sii, qadada kadibna 2 kala sii, caawa inta aanay seexan ka horna 2 sii, insha Allah way ku ladnaanaysaaye." Madiinana markiiba 2 xabbo oo kiniin ah ayay siisay. Kadibna Saxarla ayay ku tidhi, "Ku seexo waad ku ladnaanaysaa insha Allahuye."
waxa tegay maalinta inteedii badnayd Muxibe iyo Samaane iskuulkii ayay ka soo laabteen kadibna Muxibe oo dharkii iskuulka iska soo bedeshay oo qolka ka soo baxday ayaa Madiina ku tidhi hooyo aaway gabadhii waxay ugu jawaabtay gabadhii way xanuunsatay oo qolkayga ayay jiiftaa intay Muxibe u dhaqaaqday dhinaca qolkii ay Saxarle jiiftay ayay hooyadeed ku tidhi maxaa ku dhacay Madiina ayaa Muxibe ku tidhi naa ka soo noqo gabadhu ha kaa jiiftee Samaan oo ay naxdini ka muuqata ayaa yidhi hooyo daawo ma siisay waxay ugu jawaabtay haa digtor ay daawo ayaa kiniin u keentay waanay ladan tahay hadda ee daalkii ayaa ku soo baxay oo way hurudaa Muxibe iyo Samaan waxay xiiseynayeen in ay la sheekaystaan Saxarle nolosheedana wax badan ka ogaadaan aad baanay uga xumaadeen in ay xanuunsatay oo aanay bannaanka u soo bixi karin waxa dhacay gabalkii waxaana sidii caadadu ahayd yimid oday Cabdulle oo shaqadii ka soo laabtay waxa wejigiisa ka muuqday daal iyo rafaad ay sababeen qorraxdii iyo dabayshii ku dhacaysay maalintii oo dhan oday Cabdulle ayaa inta uu dambiil khudaar iyo adeeg kale ku jiraan Madiina ag dhigay yidhi nabad ma lagu soo hoyday Madiina ayaa ugu jawaabtay gabadhii martida ahayd ayaa saaka aad u xanuunsatay laakiin hadda way roon tahay kolkaas buu ku yidhi xaggay jirtaa hadda waxay ugu jawaabtay qolka ayay jiiftaa wayse ladan tahay oo ay daawo ayaa kiniinu keentay kadib waxa uu weydiiyey wax cunto ah ma cuntay kolkaas bay ku tidhi hurdo cajiib ah ayay ku jirtaa markaa waan iska dhaafay inaan ka kiciyo kolkaas buu isna yidhi daalkii iyo hurdo la-aantii ayaa ku soo baxday miskiinta laakiin soo kici waxaa cuntee deedna Madiina ayaa tidhi Muxibe kac hooyo abbaayo soo kici Samaan ayaa isaguna ka daba booday markii Muxibe kacday markaas bay Madiina Samaan ku tidhi war fadhiisa adigu wax walba waad isku qaadi jirtaye kadibna isaga oo xanaaqsan oo afka buuraya ayuu dermadii ama sacawdii uu ku fadhiyay ku laabtay waxaa aqalkii ka soo baxay Muxibe iyo Saxarle oo dheelalowsan oo istaba socda kadibna oday Cabdulle ayaa inta uu meel dhinaciisa ah gacanta ugu fiiqay Saxarle ku yidhi adeerkaale halkan fadhiiso kolkaas buu haddana Madiina sii weydiiyey maxay cunaysaa gabadha yari waxay ku tidhi waxaan u sameeyey bariis cad kolkaas buu yidhi sax waaye isaga ayaa caloosha u fiican ilaa intii ay Saxarle magaalada timid bariis cad iyo caano oo ahaa labada shay ee ay nolosheeda taqiinay midna ma ay cunin markay Neera gurigeeda geysay waxay u iibisay Saxarle toob iyo kaba dacas ah waxay iyada iyo 3 gabdhood oo ay isku dhawaayeen seexan jireen qol yar oo ku dhagan jikada balse 3 gabdhoodba waa ay ka waaweynayeen Saxarle waxaana loo diyaarinayay in ay shaqo bilaabaan ama se hawlgalaan Saxarle maadaama ay mii ka timid waxyaabo badan oo magaalada laga isticmaalo ma yaqoon maalmihii ugu horreeyay ee ay guriga Neera timid waxa la isu sheegay badawnimadeeda waxayna gabdhihii yaryaraa iyo dumarkii bilaabeen in ay ka riwaayadaystaan maalintii ugu darnayd waxay ahayd markii ay aragtay baasta la karinayo waxay u kala garan weyday inay yihiin xiidmo iyo masas la isu soo ururiyey waxayse tii ugu darnayd dhacday markii saxan loogu riday ee la yidhi cun intay istaagtay ayay saxankii baastadu ku jiray 3 tallaabo dib uga dhaqaaqday waxaase ay sii yaabtay markay aragtay baastadii oo suugo lagu soo daray isla markaana qof walba cunayo wax kasta oo ay la yaabtaba 5 bilood ee ay guriga Neera joogtay waxay kala baratay cuntooyinka waxay baratay sida weelka iyo dharka loo maydho iyo weliba in ay dukaanka ka soo iibiso waxyaabaha yaryar ee ragga qaylaya iyo habluhu u baahan yihiin sida sigaarka Coca-Cola saabuunaha cilaanka huruuda iyo wixii la mid ah markay bariiskii caanaha lahaa dhamaysay ee oday Cabdullana salaadii cishaha tukaday ayuu caruurtiisii u sheegay inay seexdaan maadaama ay beritoole iskuul leeyihiin Samaan oo qolka xaggiisa u sii socda ayaa aabihii weydiiyey aabba Saxarle miyaanay seexanayn Madiina ayaa intaan aabihii u jawaabin Samaan ku tidhi war shaqadaada ma ahee soco oo seexo Madiina ayaa markay ciyaalkii seexdeen oday Cabdulle weydiisay Cabdulle gabadha habaryarteed iyo awowgeed ma u soo heshay inkasta oo ay ahaayeen reer sabool ah oo aad u iimaan badan caana ku ahaa soo dhaweynta iyo marti kafaalaqaadka haddana waxa warwar ku hayay gabadha aan dadkeedii la garanayn ee guriga u joogta marna ku xanuunsatay deedna oday Cabdulle ayaa Madiina ugu jawaabay Madiina nima reer waqooyi ah oo aan garanaya ayaa weydiiyey gabadha habaryarteed iyo awowgeed waxaana ii ballan qaadeen inay soo raadinayaan waxaana sidoo kale fariin u diray jaamac dirir in uu igu soo warceliyo Madiina oo weli Saxarle xaaladeeda aad uga warwarsan ayaa oday Cabdulle ku tidhi
cabdulle maynu gabadha duqda sareedo ee reer waqooyiga ah ee suuqa kaaraan agtiisa degan u geyno waxaa laga yaabaa in ay ehelkoodii garatee oday cabdulle oo hadalkii madiine dhibsaday ayaa ugu jawaabay madiina gabadha xaaladeeda aniga igu dhaaf aniga ayaa habaryarteed yaa ogeed u soo helaya ee duqdan waalan ee qaadka gadda u geyn mayno daawadayaal intaa waxaynu ku soo afmeeri doonaa qaybtii 6 ee buugga sheekafaneeda ah ee saxarla ee uu qoray faarax maxamuud qaybta xigta inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh igu onkoda aqalka magalo xaniya daryeel dadka ma usho iga awdan ban ka gooyaya